ورحمة الله وبركاته داود يا الكسر دوادة برنامج كني دعوين كدونك أو ويجيبا إن كسر قاعدنا دعوة كم إذا دعوين كدونك فضلا هذا النوع سبت هاي هنجي لاون سبسكرايب سين الشركة دعوين كان وما تنسوا قاعدنا وحويه لبا ويل أول على أو سل الشيء جايو تجي تراويح مساجد كم إذا مساجد كويا لدى الكاميرا أيا ولا الكود وكوينه لبضة وهلك كدلي سو la sheegay in isagina la dilay markii dambe ciidanka booliisku dileen oo dhibaato weyn geystay waraysigan u qaaday TV-ga Universal TV oo ka qaaday imaankii masaajidkaas ayaynu isla daawanaynaa waa musiibo aad u weyn oo wax laga xumaado Ilaahay u naxariisto duco in loo duceeyana way tahay horta aynu isla daawano laba wiil oo Soomaali ah walaalo ah oo xaafid quraan ah oo xalay salaada taraawiixda ka tujiyay masaajidka At-Taqwa oo ku yaala magaalada Kansas City ee gobolka Missouri ayaa waxa dilay sida wararka qaar ay sheegayaan walaalkood ka weyn oo 20 jir ah kaasi oo markii dambe caawa booliska toogtay si aan faahfaahin arrimahaasi oo dhan aan uga helno waxa qadka telefoonka aan kula xiriiray imaamka masjidka At-Taqwa Sheikh Mustafa soo dhawo marka hore marka xiga xalay sida wax u dhaceen dadku waan dhawahay xalay waxay wax u dhaceen wiilashu ninkan labadan habeen u dambeysay waa imanayay masjidku imanayay ma aanan ogeyn annagu kamaana warqabin laakiin waxa laga sheegayay inuu dad layn doono oo maaragtay khaasatan masjidkan inuu dad layn doono xogaad waxa kale oo laga sheegay inuu yiri diinta fake weeye wadaadaduna been bay sheegayaan oo been bay dadku sheegaan hadalla saasa ka liiga sheegay maanan ogeyn annagu inuu nin cuduraysan yahay oo cuduradi ay ku jirto oo diinta islaamka oo araysan ma aanan ogeyn inuu yahay laakiin arrimaha saaka ay soo gaadheen kolkii wiilasha labadan yarkee walaalihii oo xufaad oo dadkii masaajidda tukinayay markii la soo qaaday wiilkii soo qaaday wuxuu yiri markii hore waan sugi jiray ilaahay qadarkiisa xalay kolkaan albaabka dhigay wiilasha midna 16 jir buu ahaa waxaan marayka kalena 14 jir miya ayay ahaayeen rag oo adaraga weyn iska ahaayeen oo Mareykan 14 jir ilmaha ay Mareykan waa qof weyn عمل وكله مركا صادنا البابكي كنا صاودي ما كنا خايب ليش مركا البابكي مركا جراح يعني اللي مسونا مال البابك كيسو قبناي وكسو كعنيك عبد واحد اللي هذا النعبة اللي وير قاري فراد جودن قبائل مارك القرآن كيسا هذا ما أنت مال بدن السوق قليل أيوة ما ضحك قبل الله وليش مركا صدح بقى هايين عبد واحد يا عبد الرحمن يا من زبير اللي هذا ويرى يسوي 8 وحجرة 8 بلا هجرة قلت ما ضحك بالله بي حبدي مركه واحد بدن بقوه يقول اسكحدي يقول الدرب يكفر لي حبضا انتودي بدن ويلكاس ku dhameeyay walaalkii عبد الرحمن buu kula soo jeestay isagana madaxu ka dhuftay dhowraalo soo saadhay madaxu ka dhuftay markaasuu kii yaraa albaabka xoog u garaacay furay asaguna halka wuxuu galay uu cabaysanayay albaabkii in la furana uu rabay reerkana uu gumaado wiilasha aaboodii hooyadood hore bay u dhinteen waxa gacanta ku haysay eedadood xamdi gabadh la yiraahdo eedadooda gacanta ku haysay oo wax bartay oo aad iyo aad quraanka ugu dadaali jirtay aad iyo aad juhdi aad iyo aad weyn ku bixisay إلهي وحن كرجينا إلهي وقوانا صبر سيو بقوانا ويسكو دردر سنتيبا هذا اللي يقول هاي وحن بقدر إلهي مركا لك تقصي كي كان تقصي يركي الباب فوق لقسي أصو عري قريب الباب كنا كحدين ورتي قولي لقى حدي أصو حقه سكان غاقي مركا ويشي ماشي بكل انتين انت صح علي دعوي waayahay marka wiilkii kale ee dibka geystay isaguna waxa la soo warinayaa in caawa ay booliska dileen bal arintaasi iyaduna faahfaahin laga sii
niyo anu maba ana ogeyn kolkii hore inuu gurigayga agtiisuba deganaaba gurigayga dhankiisa ah ayuu deganaa marka wada yar baa noo dhaxaysa wadadii bay maanta isaga naftiisu malag baa waday Soomaalidu meelihii albaabada meelihii oo dhan ay maqaaxiyadii suuqiya waa la wada xidho ninkii wax baan dili oo Soomaalidan layn buu yiri oo yaa la isgaarsiiyey arrinta markii la isgaarsiiyey Soomaalidu meelihii furaa oo dhan inta badan way xidheen maqaaxiyii waa la xidhay maqaaxiyii kolkii hore way xidhnaayeen laakiin suuqyadii yaa la xidhay markii suuqyadii la xidhay meeluu socday markii wadooyinka ah islaan eedadii abuu gurigeedii ag maray iyadoo taagan buu arkay xabaduu ku garaacay ilaahay baa garab mariyey markaasuu dibeetana casarradii casarkii markay tahay baa nimankii booliiska ahaa heleen nimanka way suud gareeyeen isaguna wuu ku riday ma aqaan inuu iyo wax ka yeelay oo waxba ka dhaawacay ma garanayo laakiin madaxa laga toogto oo ninkii oo officerka ah baa toogtay oo madaxa ka toogtay marka xabadaas ku dhacday markii hore dhaawac baa lagu qaaday marka waxaan u maray isbitaalku ku dhintaa filaya intaas dhacday marka goorme ayaa la qorsheynayaa in wiilashii xal geeriyooday iyo kan caawa geeriyood la aasayo weekend baa soo galay weekendu markuu dhamaado isniinta baa la ogaan goortii oo maaragtay ay soo fasaxaan wiilasha yararkan inta badan waxaa laga yaabaa in maaragtay waxay waa la qalqali oo wax in lagu sameeyo waa suurtagal laakiin goortay fasaxaan baa la arkay wararka qaar ayaa waxay sheegayeen in wiilka dhibka geystay oo 20 jirka ahaa oo maanta booliska ay toogteen in dhanka maskaxda lagu jiray marka arintaasi maxaa ka jira ardaygu waa aan jiro meeshan masjidka uu arday ka ahaa oo muddo dheer arday ka ahaa quraanka inuu dhameeyay waan u malayn marka tabacdi baa in korkii hooyadii dhimatay ee masaa'ib ku dhacday marka adigu waa un meel dhibka uu ka dhacay marka hooyadii hore dhimatay ka bacdi ayay masaa'ibtu ku dhacday marka wuxuu noqday u shaqaysan jiray laakiin waxaan u malayn inuu daroogada isticmaali jiray saas aan filayaa hooyadiis sidoo kale markay dhimatay aad bay u qabsatay magaalada aad degan tihiin dhacdadaasi dad badanna way ka naxeen qaab ceenkee ayay u dhimatay hooyadiis walaal deeqo arrinta inaan ka gaabsadaan jeclahay waa arrin aad maaragtay nafta ay way ikhsanayso marka aad waxaan u jeclahay deeqo inaan arrinta ka gaabsado way ugu dambeyntii marka xaaladda magaalada Kansas City ee gobolka Missouri Soomaalida ku nool waa sidii hadda wallahi murug weyn baa jirta labada wiil ee yararka oo dhalinyarada xafaada oo quraanka ilaahay wax lagu dilay aan kasbanin dambina aan samaynin masaajidkii ummadda hortaagnaa ee tukinayay qiraa'adoodii iyo loo bogay ee yararka ah wiilashaas dilkoodu meel aad iyo aad weyn dadka ka gaadhay laakiin isla markaana haddana dhibka waxaa keenay waxa laayay waa walaalku sheeg iyo walaalkooda marka arrintaasi aad iyo aad bay anaga maaragtay community ahaan aad bay noo dhibtay laakiin qadarkii ilaahay baa in lagu sabraa waajib ah waa tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Sheekh Mustafa oo ah imaamka masjidka At-Taqwa ee magaalada Kansas City ee gobolka Missouri ee dalka Mareykanka oo dhacday igu waramayay Sheekh Mustafa aad baad maasan tahay